waqooyiga Kuuriya iyo madaxweynaha dictatorka ah waxaa jira propagando shacabka rayidka ah ee Kuuriya ay ku neceb yihiin Mareykanka iyo dhammaanba dunida reer galbeedka. waqooyiga Kuuriya shakhsi kasta waxaa waajib ku ah mar walba iyo saacad walba inuu xuso kuna digriyo heesaha rejiimka ee gumaystaha. bishii July 2014 waxaa lagu dhawaaqay in banaanka loo soo saaro hubka culus ee nuclear-ka. xilligaas oo dhammaanba saxaafadda dunidu boggooda hore boombooni saa'ida ku soo daabaceen interviewgii Kim Jong-un. Robin Gates xoghayaha wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka 5 sano ee ugu dambeysay waqooyiga Kuuriya waxay korriimo saa'ida ka sameynayeen xagga tiknoolajiyadda taasoo khatar ku ah dhammaan Mareykanka iyo dunida reer galbeedka. dikhowga hawada ayaa saameyn weyn ku haya dadka rayidka ah. 2013 ayaa la ogaaday in ay maadada uraniumta ee nuclear-ka laga sameeyo keeni karto dhalashada ubad aan caadi ahayn. waa dal yar oo leh 1.3 milyan oo askar ah waana ciidanka ugu badan dunida. December 2014 dugsiga ciidamada waxaa ka soo baxay ciidan la mida militariga dalka Mareykanka la cududa iskana celin kara iskana caabin kara jab kasta iyo xaalad kasta oo timaada. waa khatar laga yaabo mustaqbalka dhow in ay horseedo rugmashada qaybo badan oo ka mid ah arlada dunida.